taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka ayaa maanta dhagax dhigay masjid laga dhisayo taliska ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed. madasha munaasabadda dhagax dhiga waxaa goobjoog ahaa taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar General Khalid, agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka Ibrahim Aadan Ibrahim Nadara, taliye xigeenka ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro iyo saraakiil kale. ugu horeyn taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar oo madasha munaasabadda ka hadlay ayaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka kaga mahadceliyay taageeridooda iyo dadaalada ku aadan dhismaha masjidkan cusub oo uu yeelanayo taliska ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed. maanta ay tahay taariikhda 13 November 2025 waxaan dhagax dhignay masaajidka taliska ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay noo dhiseen ama garab naga siiyeen wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka dowladda federaalka Soomaaliya. runtii waxaan halkan u soo istaagnay dhagax dhiga kasakow inaan uga mahadcelino wasaaradda iyo cid walba oo garab noogu noqotay in aan dhisno masaajid ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliskaba lagu cibaadeysto lagu tukado. waan uga mahadcelinaynaa cid walba oo gacan ka geysatay iyo wasaaradda aad baad u mahadsantihiin agaasimo. geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka Ibrahim Aadan Ibrahim Nadara ayaa waxa uu sheegay dadaalada wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka in aysan intaasi ku ekaan doonin isla markaasna wasaaradda ay gaari doonto talisyo kale iyo xarumo dawladeed. taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliye xigeenka iyo dhammaan saraakiisha nagu soo dhaweeyay xarunta ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed waad mahadsantihiin. sida taliyuhu sheegay waxaan ka dhagax dhignay xarunta masaajid doonayno insha Allah taala inuu qabtiro baahida cibaadada ciidanka si ay ugu tukadaan oo ugu cibaadeystaan. taliye runtii soo dhaweyntiinii niyad samaanta iyo kulli waan idinkaga mahadcelinaynaa. waa bilow dhammaan xiriyaha ciidanka oo dhan baan rabnaa inay masaajida helaan sida ay dad ducaado culimada wacdiyada ay u haystaan goob ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ku caabudaan inay helaan. waa ku dadaalayna hadii Allah idmo in masaajid meelaha qaarna way leeyihiin meelaha aan masaajid lahayn inay masaajid u sameeyno. taana waa waajib wasaaraddu saaran oo qaranku uu igmaday. idinkuna niyad samida iyo wanaaga iyo soo dhaweyntiini waad ku mahadsantihiin. dhagax dhig kaliya ma dhismuhuna horu ka bilaaban doona hadii dhismaha uu dhamaadana kitaabadii quraanka lagu akhrisan lahaa iyo intabana waa naga diyaar haddaan wasaaradda nahay waa horaan ka keenin hadii Allah idmo. jazaakumullahu khair aad baad u mahadsantihiin. Sakariya Qaasim Bagax gudaha taliska ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed.